kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah Villa Soomaaliya oo shaaca ka qaaday waqtiga dib loo soo celinayo askarta ku maqan wadanka Eritrea sidoo kalena ka cadeysay in askartaasi ay ka qaybgaleen dagaaladii ka dhacay wadanka Itoobiya iyo in kale beeniyeyna war ay horey u faafin jireen markii ay mucaarad ka ahaayeen madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland iyo Axmed Madoobe kale isu bedelaya mucaaradka ugu weyn ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay ka waayeen damacii ay ka raadinayeen caqabadii hortaagnay magacaabista golaha wasiirada oo laga gudbay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 3 shuruudood ku xidhay wasiirada uu soo xulayo ra'iisul wasaare Xamse qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena sida aad hordhaca wararkeena ku maqasheen madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay waqtiga dib loo soo celin doono askarta Soomaaliyeed ee tababarka u joogay wadanka Eritrea kuwaasi oo dhowaan booqasho ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada qaranka ayaa sidoo kale tan iyo markii uu xilkaasi sida rasmi ah ula wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka hadashay in ciidanka tababarka ugu maqan wadanka Eritrea ay ka qayb galeen dagaaladii ka dhacay galbeedka wadanka Itoobiya iyadoo oo kol hore ay soo baxeen warar tilmaamayay in askartaasi laga qayb galiyay dagaaladii ka dhacay gudaha dalkaasi Itoobiya afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariim oo shir jaraa'id ku qabtay madaxtooyada ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay galbeedka wadanka Itoobiya iyagoo oo laga qaaday gudaha dalka Eritrea oo ay tababar u joogeen afhayeenka madaxtooyada oo la hadlayay wariyaasha ayaa warkaasi waxa uu ku tilmaamay mid waxba kama jiraan oo ku tiri kuteen isagoo oo tilmaamay inay dhan yihiin askartii ay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geysay wadanka Eritrea sanadkii 2019 waxa uu yidhi warkaasi waa ku tiri kuteen war rasmi oo dowladda ka soo baxayna ma ahayn ciidamadaasi tababarka way dhammaysteen waana 5,000 oo askari wuxuuna shaaca ka qaaday in toddobaadyada soo socda dalka dib loogu soo celin doono si ay u gutaan waajibaadka loo tababaray ayuu sheegay afhayeenka madaxtooyada qaranka wuxuu sidoo kale sheegay afhayeenka madaxtooyadu in 5,000 ee askari ee ku sugan wadanka Eritrea uu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena uu uga warramay xaaladooda diga waalidiinta dhalay ubadkaasi oo uu kula kulmay magaalada Muqdisho warkani ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa meesha ka saaraya warar muddooyinkii dambe la isla dhexmarayay intii ay xukunka haysay dowladii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo ku saabsanaa in ciidamadaasi ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay dalka Itoobiya ee dhexmaray dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo jabhadda TPLF ee gacanta ku haysa gobolka Tigreega ee galbeedka Itoobiya warbixin ka soo baxday guddiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidan Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee galbeedka wadanka Itoobiya waxaana wararkaasi been abuurka si xoogan u faafiyay gudaha Soomaaliya dhinacyadii mucaaradka ee ka soo horjeeday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee nabad iyo nolol si ay ugu xumeeyaan sumcadda dowladdaasi sidoo kale waxaa arrinkaasi sheegay ururka TPLF iyagoo la rumaysan yahay in warbixinada soo baxay oo dhan ay ahaayeen walaga lahaa dana gaar ah si loogu xumeeyo sumcadda iyo sharafka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana si xoogan u faafinayay dhinacyadii mucaaradka ay doonayeen inay kula tartamaan doorashada madaxtooyada warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu xusay in guddiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay soo gaadheen warbixin iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka military u jooga dalka Eritrea laga qaaday xeradii tababarka lana geeyay jiidda hore ee dagaalka gobolka Tigreega waxaana ciidanka Soomaalida ay weheliyeen military oo ka gudbay xuduudda labada dal ee u gacan siiyaan dowladda Abiy Ahmed sidoo kale doorashada madaxweynaha Soomaaliya hor siyaasiyiinta mucaaradka uu ka mid ahaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si xoogan u faafinayay in ciidankaasi loo isticmaalay dagaalka Itoobiya balse waxaa muuqata in arrintaasi ahayd la xidhiidha siyaasad iyo olole
ololo doorasho. Arrinta fadeexadda ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku jirta hadalka hadda ka soo yeedhay madaxtooyada ayaa ah inay beeninayaan warar ay iyagu horay u faafiyeen si ay markaasi ugu xumeeyaan madaxweynaha uga guulaystaan doorashada. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu ahaa shaqsigii askartaasi tababarka ugu diray gudaha Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan safar ku tegay magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea, waxa uuna la kulmay ciidanka tababarka ku dhammaystay dalkaasi, wuxuuna markii uu Muqdisho ku soo laabtay qaabilay waalidiinta dhalay ilmahaasi, isagoo u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ula midoobi doonaan ubadkooda laguna soo celin doono magaalada Muqdisho. Dowladdii madaxweyne Farmaajo ee xafiiska wareejisay bishii May sanadkani ayaa beenisay wararka la isla dhexmarayay ee ku aadanaa in askarta Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Eritrea ay qayb ka noqdeen dagaaladii ka socday galbeedka waddanka Itoobiya, iyadoo uu adeegsaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka tageen hadallo badan oo la xidhiidha askarta ku sugan dalka Eritrea intii uu ku jiray ololihiisa doorashada, ayaana dhowaan booqday ciidanka ku sugan waddanka Eritrea, isagoo qiray inay ahaayeen ciidan ay ka muuqatay waddaniyad iyo markaasi daljacayl, doonayana inay dib u soo laabtaan waddankooda si ay uga difaacaan cadowga argagixisada una gutaan waajibka loo tababaray. Halka dhaliil ay ku lahayd dowladdii madaxweyne Farmaajo, ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Eritrea ayaa ahayd inayna si toos ah uga hadlin islamarkaana ayna qancinin waalidiinta dhalay dhalinyarada ku sugan waddanka Eritrea sida lagu eedeynayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay wuxuu sheegay uu tegay ciidankaasi, iyadoo haddana ay soo baxayaan warar sheegaya in dowladda Eritrea ay ka dalbatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu bixiyo dhaqaale xooggan oo ku baxay ciidanka Soomaaliya intii ay joogeen gudaha waddanka Eritrea, kaasi oo la sheegay inay horay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu ballan qaaday inay bixinayso. Dowladda Qatar oo saaxiib dhow la ahayd dowladdii Nabad iyo Nolol. Haatana madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa hadda u diga roganaya mucaaradka ugu weyn ee ka hor yimaada dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii ay guud ahaanba ka niyad jabeen dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud islamarkaana ay u fulin weyday damaacigii ay ka raadinayeen. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa durba iska diiday damaca hogaamiyayaasha Puntland iyo Jubbaland oo sanadii lasoo dhaafay saaxiib ku ahaa siyaasadda, islamarkaana dana isku mid ah ka doonayay inay u fuliso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo isagu ka mid ah murashaxiin tartanka doorashada kala qayb galay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Xasan uga baxay ballanqaad uu sameeyey kadib markii Siciid Deni uu ku gacan siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guushii uu ku gaadhay madaxtooyada. Ballanqaadkaasi wuxuu ahaa in ra'iisul wasaaraha dalka laga dhigo Siciid Cabdullaahi Deni haddii uu soo baxo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana Xasan arrintaasi ka laabtay kadib markii ay soo gaadheen wadatashiyo fara badan oo tilmaamayay inuuna la shaqayn karin haddii uu soo magacaabo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Hogaamiyaha Puntland Siciid Deni iyo maamulkiisa fariisinka u tahay magaalada Garowe ayaa durbadii muujiyey sida aysan ugu qanacsaneyn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uuna la soo kala baxay buuggiisa mucaaradnimada ee uu ku hayay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee talada dalka wareejisay ka hor xukunka Xasan Sheekh Maxamuud. Hase ahaatee, dad badan oo siyaasadda la socda waxay filayeen inay halkaasi ku kala furan doonaan saaxiibtinimada Axmed Madoobe iyo Deni, maadaama Axmed Madoobe isaga ra'iisul wasaare looga dhigay in ay isku deegaan yihiin sidoo kalena ay saaxiibo isku dhow yihiin. Balse hadda xogaha la helay waxay muujinayaan in Deni iyo Axmed Madoobe ay weli ku wada socdaan siyaasadda, islamarkaana aysan kala furfurin magacaabistii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo hadda si wada jira uga soo horjeeda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo tallaabooyinkeeda. Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo doonayay in si dhaqso leh bilaha ugu horeysa ee xukunkiisa uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu soo gacan geliyo gobolka Gado oo sanadihii ugu dambeeyay ka maqnaa gacantiisa, islamarkaana dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dhistay maamulka madax bannaan kiisa fadhiya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Balse Xasan Sheekh Maxamuud arrinkaasi ka diiday, wuxuuna u sheegay in Axmed Madoobe
inuusan awood ku muquunin doonin dadka gobolka Gedo oo xaq u leh in la dhageysto aragtidooda iyo waxay ka tabanayaan maamulka Jubbaland. Filashada Axmed Madoobe ayaa waxay ahayd in laga soo saaro gobolka Gedo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku daadgureysay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay halkaasi u galaan ciidanka daraawiishta Jubbaland, kadibna loo bedelo maamulka ka dhisan gobolkaasi Gedo oo dib loogu soo celiyo gacanta Axmed Madoobe ee gobolkaasi. Balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ilaa iyo hadda qaadin tallaabo la xidhiidha gobolka Gedo, waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in dadka gobolka Gedo laga dhageysto cabashada ay ka qabaan maamulka Axmed Madoobe, isla markaana la tixgeliyo waxay iyagu doonayaan maadaama ay masiirkooda xaq u leeyihiin. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sidoo kale diiday inuu dhag jalaq u siiyo siyo kala duwan iyo soo jeedimo uga yimid hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland oo iyagu markii hore khayaano ku heshiiyey, aaminsanaana inay meesha ka saareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu tegay madaxtooyada nin ay isku aragti siyaasad yihiin. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inay hadda go'aan midaysan ka qaateen labadaasi maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland, isla markaana madaxtooyadu ay doonayso inay gacanta Daney iyo Axmed Madoobe ay ka saarto Jubbaland iyo Puntland, isla markaana lagu bedelo hogaamiyaal cusub oo iyaga daacad u ah madaxtooyada Soomaaliya, si la mid ah sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu eedeynayay kooxihii mucaaradka ah ee xilligaasi ka jiray. Arrintani waxay ka dhigan tahay in Daney iyo Axmed Madoobe mar kale la soo kala baxayaan buuggoodii mucaaradnimada oo ay ku soo jireen sanadihii ugu dambeeyey, isla markaana si weyn isugu hayeen siyaasadda. Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagoo ku guuleysan waayey inuu farageliyo arrimaha labadaasi maamul kana takhaluso labadaasi dadka majaraha u haya. Puntland ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay muujinaysa kala fogaanshiyahooda iyaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud dib markii laga celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso wafdi ay horkacaysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya waxayna ku simaan madaxweynaha, taasi oo deeq gargaar bini'aadanimo ah u siday dadka degan gobolka bari ee Puntland, waxaana diyaaradii la socotay lagu qasbay inay dib u soo laabato magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo markii hore ay ka duuleen. Sidoo kalena afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa dhowaan qoraal u soo geliyey bartiisa xidhiidhka baraha bulshada, waxa uu ku dhaliilay aragtida Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah, isagoo sheegay inuu isticmaalayo qaab qaldan oo ay ahayd marka hore in Soomaalida dhexdeeda heshiis laga sameeyo kadibna loo gudbo duni heshiis la ah. Wuxuuna sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka bilaabay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah inuu marka hore u socdaalo dalka dibaddiisa Soomaalidii oona heshiis ahayn. Arrinkaasi ayaa waxa uu muujinayay inay Puntland ka cadhaysnayn inuuna tegin Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Garowe oo iyaga fadhiisan u ahaa, taa beddelkeedana uu booqday maamul goboleedyada marka la eego Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Haatana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wada tashiyadii ugu dambeeyay ee ku aadan wasiirada cusub ee la filayo in la soo dhiso. Xukuumadda cusub ayaa la filayaa inay wax badan kaga duwanaato xukuumadihii dalka hore u soo maray, gaar ahaan xilligii Xasan Sheekh Maxamuud oo lasoo dhisay ilaa dhowr xukuumadood. Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa wararku waxay sheegayaan inay kala qaybsadeen wasiirada, iyada oo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre loo daayay inuu soo xulo wasiirada ka imanaya beesha Daarood. Intaa kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku xidhay 3 shuruudood wasiirada uu soo xulayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee ka imanaya beeshiisa. Shuruudaha uu Xasan Sheekh Maxamuud ku xidhay Ra'iisul Wasaaraha ayaa kala ah inuu keeno qof bulshada dhexdeeda sumcad wanaagsan ku leh, horeyna aan looga baran xumaan, qof aqoon-yahan ah oo wax soo bartay isla markaana dalka wax u qaban kara, iyo qof wadani ah oo daljoog ah isla markaana aan ka imanin qurbaha oo xogaal u ah waxa ka jira waddanka. Wararka ayaa la sheegayaa in laga gudbay caqabad saacadii lasoo dhaafay hortaagnayd ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub, kadib markii wasiirada lasoo xulayo ay ku kala aragti duwanaadeen Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha qaranka. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.